Öncelikle tüm Somali ve Türk halkının başı sağ olsun. ugu horeyn waxaan tacsi u dirayaa shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka Turkiga. Dün kötü bir gün yaşadık. Biz bu saldırıyı kınıyoruz. Shalay waxay ahayd maalin aad u murugo badan waan daleecaynaynaa dhacdadii ama qaraxii shalay dhacay. Yaklaşık 80 Somali kardeşimizin yanında 2 tane de Türk kardeşimizi kaybettik. Waxaan qaraxii ama weerarkii shalay ku weynay 80 ku dhawaad 80 qof oo walaalaheen Soomaaliyeed iyo laba muwaadiniinteena ah. Türkiye her zaman olduğu gibi zor zamanlarda Somalili kardeşlerinin yanında yer almaktadır. Sidii horeyba ay u ahaan jirtay dowladda Turkiga waxay garab taagan tahay walaalahooda Soomaaliyeed maalmaha adag. Dün öncelikle tüm kurtarma faaliyetlerini buradaki Somali yetkililerle birlikte koordine ettik. Shalay waxaan kala shaqeynay arrimaha gurmadka mas'uuliyiinta ama hay'adaha ku shaqada leh ee Soomaaliyeed. Birçok yaralı biliyorsunuz değişik hastanelere nakledildiler. Sidaad la socotaan dhaawacyo badanaa waxaa la geeyey isbitaallo kala duwan. Bunların ağır olanları bizim burada bulunan Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildiler. Sidaad la socotaan in badanoo aad dhaawacooda u cuslaa waxaa la geeyey isbitaalka halkan ku yaala Recep Tayyip Erdoğan. Dün Somali hükümetinin bizden bir yardım talebi oldu. Özellikle ağır olan hastaları Türkiye'ye götürüp Türkiye'de tedavi etmek yönünde bir talepleri oldu. Shalay yaa xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay noo soo gudbisay dalab ah inaan ka geysano kaalin khaasatan dhaawacyada halista ama kuwa ugu culus in dibadda loo qaado. Hükümetimiz de dün hızlı bir şekilde buraya büyük bir askeri kargo uçağı gönderdi. Xukuumaddeenana waxay si degdega u soo dirtay diyaarad ciidan. Uçakla birlikte büyük oranda tıbbi malzeme nakledildi. Diyaaraddu sidoo kale waxay keentay qalab caafimaad oo aad u badan. Ayrıca bu tür durumlarda ihtiyaç duyulan doktorlarımız buraya geldiler. Sidoo kale waxaa la socday dhakhaatiir. Bir de Ulusal Medikal Kurtarma ekibinden büyük bir ekip şu anda burada. Waxaa kaloo la socday sidoo kale koox caafimaad oo ka socda Turkiga. Dün gece sabaha kadar da ülkemize götürülecek hastalarla ilgili çalışma yaptık. Xalay ilaa waaguu ka bariyo waxaan ka shaqaynaynay ama aan ka wada shaqaynaynay sidii loo diyaarin lahaa dhaawacyada loo qaadayo Turkiga. İnşallah biraz sonra onları ülkemize göndereceğiz. İnşallah waxaan rajaynaynaa wax yar kadib in aan waddankeena u qaadno. Ekibimizin bir kısmı burada kalacak. Buradaki tedavi faaliyetlerine yardımcı olacaklar. Tiimka Turkiga ka yimid qaar ka mid a intay ku hari doonaan si ay kaalin uga geystaan daaweynta dhaawacyada. Demin de söylediğim gibi Türkiye her zaman zor zamanlarda Somali kardeşlerimizin yanında olacaktır. Sidaan horeba u sheegay dowladda Turkiga waxay mar walba garab taagnaan doontaa gaar ahaan maalmaha adag walaalaheenna Soomaaliyeed. İnşallah bu son olur ve bir daha da böyle bir yardıma ihtiyacımız kalmaz. Waxaan rajaynayaa in weerarkan uu noqdo kii ugu dambeeyey oon loo baahanin gurmad sidan oo kale ah. Tekrar bütün Somali kardeşlerimizin ve halkımızın başı sağ olsun. Mar kale waxaan tacsi u dirayaa shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka Turkiga. Teşekkür ederim. Aad u mahadsantihiin. Gelen doktorların sayısı ve getirilen tıbbi malzemelerin miktarı. Şu anda 19 tane kurtarma ekibi birlikte 19 tane sağlık ekibimiz burada, 19 kişilik. Bunların bir kısmı hastalar Türkiye'ye giderken onlar refakat edeceklerdir. Çünkü onların da tıbbi bakıma, desteğe ihtiyaçları olacaktır uçakta. Yaklaşık 2 tona da yakın tıbbi malzeme getirildi. Waxaa yimid 19 howlwadeen caafimaad oo qaarkood ay halkan ku hari doonaan qaarka kalena ay raaci doonaan dhaawacyada la qaadayo oo ku weelin doona diyaaradda. Sidoo kale waxaa la keenay ilaa 2 tan oo qalab caafimaad ah daawo ah. Aslında buradaki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanemizin kapasitesi
yeteri kadar sağlık hizmeti vermeye müsaittir. sidoo kale waxaan rabaa inaan idinla wadaago in cisbitaalka Rajab Tayyip Erdogan uu ku filan yahay baahida caafimaad inuu daboolo. Biz biraz da önlem olsun diye bu malzemeyi buraya naklettik. qalabkan caafimaad iyo dhakhaatiirtana waxaan u keennay inay u noqdaan xoojin ama kordhin. Şunu da söylemek isterim ki hastanemizde şu anda bütün yaralılar gerekli sağlık desteği alıyorlar. Waxaan rabaa sidoo kale inaan idin sheego in hadda aan halkan joogno cisbitaalka uu qaabilayo dhaawacyada. En ağırları dün ameliyat edildi. Kuwii ugu darnaa ama kuwii ugu cuslaa qalliimadooda xalaa la sameeyey. Ayrıca bizim Somali hükümetinden bir talebimiz oldu. Diğer hastanelerde bulunan tüm hastaları bizim hastanemize nakletmelerini istedik. Sidoo kale waxaan codsanay in dhaawacyada kale culusna loo soo gudbiyo cisbitaalka Erdogan. Bir anlamda bütün yaralıların tedavisini üstlenmiş olduk. Sidaas darteeda ayaa waxaan mas-uuliyaddeeda qaadnay ama aan codsannay inaan daweyno dhammaan dhaawacyada. Dün sabaha kadar çok sayıda hasta diğer hastanelerde bizim hastanemizde Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'ne nakledildi. Xalay dhaawacyadii ugu darnaa ama ugu cuslaa cisbitaallada ku jiray waxaa loo wareejiyey cisbitaalka Erdogan. Birazdan gelen uzmanlarımızla birlikte hastane yönetimi bir değerlendirme daha yapacaktır. Ayagoo kaashanaya maamulka cisbitaalka ayagoo kaashanaya dhakhaatiirta iyo khubarada hadda timid waxay markale samayn doonaan qiimeyn ku saabsan dhaawacyada. Ülkemize götürülmesi gerek hastaları tespit edip göndereceğiz inşallah. Waxaa isla qiimeyn doonaa dhaawacyada ugu culus ee u baahan in Turkiga loo qaado kabacdina waa la qaadi doonaa. İnşallah. Birkaç soru varsa alabiliriz. Haddii su'aalo kale ay jiraan. Thank you.